aniga isdaldalaya ee jawaanka ka fogeeya madaxayga. waa ereyadii ugu dambeeyay ee uu ku dhawaaqayay Jamaal Khashoggi ka hor intii aan la dilin. wargeyska Sabaaxa Turki ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in saraakiisha baaritaanka Turkiga ay heleen codka Jamaal oo duuban kaasoo ahaa ereyada uu ku dhawaaqayay ilbiriqsiga ka hor markii la dilay. cod kale helay iyo ereyada uu ku dhawaaqayay ayaa cadeynaya in wariyaha Sacuudiga u dhashay lagu dilay xarig lagu ceejiyay kaasoo in uu dhinto ay qaadatay muddo 7 daqiiqo ah. hawsha jarjaristuna waxa ay qaadatay muddo 15 daqiiqo ku dhow ayada oo xubnaha jirkiisa cad loo jarjaray oo aad loo yaryareeyay kadibna dhowr boorso lagu shubay oo loo kala qaybiyay boorsooyinka si loogu qaado. boorsooyinka lagu shubay hilbihii la jarjaray iyo lafihii la jijabiyay ee wariye Jamaal Khashoggi ayaa lagu raray dhowr gaari oo ay leedahay qunsuliyadda Sacuudiga. madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in dawladdiisu ay heshay macluumaad duuban oo ku saabsan gabadfalka uu Sacuudigu kula kacay wariye Jamaal Khashoggi kadibna ay xogtaasi u direen dawladaha kala ah boqortooyada Sacuudiga, Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo boqortooyada Ingiriiska. dawladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa kulan ka yeeshay arrinkan kadibna waxay isku waafaqeen in ay qasab tahay in boqortooyada Sacuudiga laga helo xog dhameystiran oo kiiskan ku saabsan. macluumaad kal hore laga soo xigtay saraakiisha ammaanka ee Turkiga ayaa xaqiijinaya in jirka meydka la burburiyay oo lagu baabi'iyay maado aashita ah ayada oo hawshaasina lagu qabtay mid ka mid ah qolalka guriga qunsulka Sacuudiga ee magaalada Istanbul. baaritaanadii kiimikaal ee la sameeyay ayaa daha ka qaadaya in wali qunsuliyadda ay dhex taalo maadadii loo adeegsaday baabi'inta jirkii meydka Khashoggi. khubarada baaritaanka kiimikada ayaa sheegaya in maadada la adeegsaday ay tahay aashitada hydrofluoric iyo maadooyin kale oo kiimikaal oo khatar ah. cod laga helay qalab waxduuba oo qunsuliyadda laga qaaday ayaa waxa laga fahmayay in wariye Khashoggi aad loo silciyay ka hor intii aan la dilin kadibna jirkiisa la baabi'in. wariyaha ayaa laga maqlayay isaga oo aad u cabaadaya taasoo laga dareemayo in uu xanuunsanayay oo aad loo jirdilayay. saraakiisha Turkigu waxay sheegeen in taas ay ka dhigan tahay in wariyaha si xun loo jirdilay ka hor intii aan laga takhalusin. mid ka mid ah ereyadii uu ku celcelinayay wariyaha waxaa ka mid ahaa aniga isdaldalaya ee jawaankan ka fogeeya madaxayga iyo waan idin baryayaa ee iska kaydaaya aan qoyskayga ku laabto. cidna dhig jalaq uma siin sidaas daraadeedna markii dambe cirbad ayaa lagu muday oo lagu suuxiyay isaga oo dhanba. daqiiqada kadibna toos ayaa loo khaarijiyay oo la jarjaray meydkiisa ilaa cadcad loo kala dhigdhigay. waana markaas kadib marka boorsooyinka lagu qaaday oo lala aaday guriga qunsulka oo inta qol dhexdiisii lagu firdhiyay hilbaha aashito lagu shubay si loo baabi'iyo. Turkiga ayaa ku adkaysanaya in dawladda Sacuudigu ay qirato dambiga bini'aadanimada ka baxsan ee ku saabsan dilka wariye Khashoggi. taasoo ay dawladda Turkigu u aragto in ay dawladda Sacuudiga qasab ku tahay in cadaaladda la horgeeyo cid kasta oo ku lug lahayd falkan
laga soo bilaabo madaxda boqortooyada Sacuudiga oo la rumaysan yahay in ay iyagu bixiyeen amarka dilka ilaa qofkii ugu dambeeyay ee ka shaqeeyay in dilkaasi la fuliyo. dhinaca kalena dawladda Sacuudigu waxa ay doonaysaa in kiiskan ka hadalkiisa hoos loo dhigo oo la qariyo si loo asturo fadeexooyinka hareeyay qoyska boqortooyada. ayada oo ay boqortooyadu ku dadaalayso in arintan la daboolana waxa ay kal hore sheegtay in kiiskan ay geysteen raggii qunsuliyadda tagay ee ay kaamirooyinku soo bandhigeen. isla raggaasna maxkamadda loo saari doono ayaga oo darajooyinkii ciidan ee ay lahaayeenna laga xayuubiyey. dad badan ayaa arinkaasi aan ku qancin oo u arka in ay wali jirto cadaalad dari ka imaanaysa dhanka boqortooyada oo inta ay gaboodfal ku kacday haddana isku dayaysa in ay kiiska daboosho oo ama si kale u qalloociso. kiiskan wariye Jamaal waxa uu abuuray guux aad u weyn oo xitaa saameeyay xiriirka boqortooyada Sacuudiga iyo dawladaha kale ee caalamka qaarkood. dawladda Mareykanka oo ay si aad ah isugu dhawaayeen dawladda Sacuudiga ayaa hadda xiriirkoodu aan wanaagsanayn. horaantii November waxa ay dawladda Mareykanku shaacisay in ay joojinayso shidaalka ay hawada ku siiso diyaaradaha dagaalka Sacuudiga ee duqeynta ka wada waddanka Yemen. Sacuudiga oo arintaasi ka jawaabayna waxa uu sheegay in uu isku filan yahay oo uusan u hakanaynin cunaqabatayn Mareykanka ka soo wajahda. qoyska wariye Jamaal Khashoggi ayaa iyaguna u ceel qaba in ay arkaan kiiska dilka Jamaal oo loo helay cadaalad la isku halayn karo oo aan ahayn tan uu Sacuudigu sheegayo in la waafajinayo